السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيرة سنتينيل waxay hooy u tahay shacab qura oo aad u khatar badan. Suurtagal may tahay jasiiradan in la booqdo. Qof kasta oo isku daya inuu aado ama inuu booqdo jasiiradan masiirkiisu waa dil. Jasiirada Sentinel xagga sare waxay uga eg tahay jasiirad qurxoon oo aad u qurux badan oo leh xeebo aad u fiican iyo biyo aad u nadiif ah. Waxay leedahay jasiiradan kaymo aad u waaweyn, qaradooduna hay weyn tahay. Waa jasiirad marka dhinac walba laga eego aad u qurux badan, laakiin qofna kuma dhicin inuu u dhawaado jasiiradan waxay qayb ka tahay jasiiradaha Hindiya ee Andaman ee bartamaha badweynta Hindiya ku yaala, waxayna kamid tahay jasiiradaha ugu go'doonsan adduunka. Qof kasta oo jasiiradan isku dayay inuu hore u aado ama doonyaha kalluumaysigu hadday u dhawaadaan xeebta jasiiradani waxay la kulmaan weeraradaas oo uga imanaya dadka ama shacabka ku qarsoon jasiiradan, kuwaas oo ku dilaya qof walba oo jasiiradan isku daya inuu imaado aw soo galo ama u soo dhawaadaba xeebta jasiirada. Shacabka ku nool jasiiradani waxay diideen wax walba oo kamid ah ilbaxnimada casriga ah ee dunida inteeda kale. Marna ma doonayaan in ay la midoobaan dunida inteeda kale ama ay la xiriiraan. Tirada dadka ku nool jasiiradan sida ku xusan tirakoob 2011 oo la sameeyay waxay ku qiyaaseen cilmi baarayaashu tirada dadka jasiiradu waxay u badan tahay in ay u dhaxayso 80 ilaa 500 oo qof. Tiradan oo loo ogeyn intay ay yihiin dadka meeshan ku nool waxay jasiiradaha ugu adag galitaankoodu, kuwaas oo marna dadka shacabka ku nool xaggaas qof walba u soo dhawaado jasiiradan la dagaalamaya ay u asmixi weyday dadkii ama sidaa darteed tirada runta ah ilaa iyo hadda lama yaqaano. Bes waxaa la og yahay dadkani in ayna aad u badnayn ama diyaaradihii dulmaraya dusha ka sawireen. Dadkan jasiiradan ku nool afkooga cidna ma fahmayso, mana jiro qof garanaya waxay dadkan jasiirada iskugu magacaabaan ama aragtiday ka haystaan dunida kale. Cid ka soo sheekeyn karta haba yaraatee ma jirto. Wararka qaarkood ayaa sheegayay shacabkan laga yaabaa inay yihiin mid ka mid ah bulshooyinka ugu nugul cudurrada, maadaama ay suurtagal tahay in ay xubnahoodu aysan iska difaaci karin cudurrada. Iska daaba hargab yar hadduu ku dhaco laga yaabaa inayba u dhintaanba. Taas oo laga soo xiganayo 1960 mar hay ciidamada Ingiriisku hay ka soo afduubeen 2 oday oo jasiirada ku noolaa, kadibna xarumihii markay keeneen ay rabeen inay ku baaraan kay 2 cishaba odayaashii may sii jooginba, wayba dhinteenba. Markii la baaray ee xubnahoodii la baaray waxay ogaadeen dhakhaatiirta waqtigaasi in difaaca jirkoodu aad u liito oosan waxbaba iska qaban karin. Sida laga soo xiganayo mid ka mid ah ururada caafimaadka ee Hindiya, wax ku dhacay lama garanayo wixii ka dambeeyay duufaankii tsunami-ga ee 2004 ku dhuftay Asia. Waxna kadib waxay diyaaradaha ilaalada xeebaha Hindiya isku dayeen in ay dadka u gurmadaan, laakiin kumayna guuleysan in ay la xiriiraanba. Diyaaradihii markay jasiiradii u dhawaadeen ay rabeen in ay fadhiistaan waxay la kulmeen shacabkii oo sidii caadada ahayd waramadii iyo leebabkii ku soo ganaya. Sidaa darteed diyaaradihii rabay inay caawiyaan dib bay markaa iskaga noqdeen. Dhacdooyinkii hore waxay markhaati ka tahay khatarta ay leeyihiin shacabkan ku nool jasiiradan, waxayna dileen 2 kalluumaysi ah 2006. Shacabkan jasiiradani dad badan ayay ku laayeen jasiiradan. Qof walba ama soo booqdo ama ha u soo dhawaadabe. Ninkii ugu dambeeyay ee lagu dilay jasiiradan waa sahamiyihii la dhihi jiray John Allen oo 26 jir ahaa. Markii uu u dhawaaday xeebta jasiiradan wuxuu la kulmay waramadii iyo leebabkii.
isagoo dhaawici xaga ka soo gaaray ayuu u dhintay ninkaas sahamiyaa ah. Xilligaa dowladda Hindiya waxay ku dhawaaqday in ay faragelin shacabkan jasiiradan ku nool arrimahooga. Waxay mamnuucday in jasiiradan loo dhawaan in laga joogo 5 kiiloomitir, taas oo ay tahay dadkan meesha ku nool inayna waxna fahmin, ayna dagaal dadka ku soo qaadayaan. jasiiradan ilaa iyo hadda waxa gudaheega ku jira khayraad na lama ogo. Waxaa la og yahay intaa baa laga warqabaa, laakiin ma jiro dad inay dhex galeen jasiirada ka soo waramay, ama ayagii oo qof walba oo isku dayay ama dad walba oo isku dayay jasiiradaas in ay mar war ka keenaan. Waxay masiirkooga looga dhigay in ay soo noqon marna. jasiiradan oo noqotay jasiiradaha adduunka kuwa ugu adag gelitaankoogu.